asxaabteena qaaliga soo dhawaada ee ku xiran channelkeena Manowar Video Production. waxaan maanta uga hadli doonaa 10kii fure guusha furiga koowaad. haddaba haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa subscribe dheh, gambalelkana furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba iyo isla xilliga aynu soo gelino. mahadsanid. hadda waxaan u maleynayaa inaad saaratay subscribe-ka oo aad ka mid tahay macaamiisha ku xiran boggeena rasmiga Manowar Video Production oo ay maanta kadib waxba aysan ku dhaafaynin. mahadsanid. maamulka waqtiga waxaa loola jeedaa maamulka nafta, waa sida uu ruuxu naftiisa u maareeyo. lambar 2, maareynta waqtigu waa shaqada oo lagu maareeyo waqtiga la haysto oo ah maalintii 24 saacadood oo lagu bixiyo juhdi yar iyo waqti yar oo waliba inoo soo hadho waqti aan wax ku fikirno, waqti aan mustaqbalka ku qorsheyno iyo waliba waqti aan ku nasanno. sheeki kuma jiro inaan dhammaanteen ka cabanayno shaqo badan iyo waqti yar. waqti ma haysto waa kelmad aan had iyo jeer ku dhawaaqno oo aan maqlnaa. mid kasta oo inaga mid ahi wuxuu jeclaan lahaa inuu helo 24 saacadood oo kale oo dheeraad ah. taasina waa mustaxiil. nolosha adduunyadu raaxo ma leh. waa kelmad aan ku dhawaaqno kadib marka aan maalintii shaqo adag soo qabanno. waqti uma hayo carruurta iyo qoyska, xitaa inagu ma haysano waqti. haddaba si aan arrimahaas oo dhan xal ugu gaarno waa inaan waqtigeena si fiican u maaraynaa. 3, maareynta waqtiga waa inaan inagu gacan sare yeelanaa oo aan isagu maaraynaa oo aanu isagu ina maamulin. dhammaanteen maalintii oo dhan waan shaqaynaa, laakiin yaa inaga mid ah oo sidii saxda ahayd u shaqeeya. aad baan u mashquulsanaa waa kelmad ay dalka intiisa badani ku cudurdaartaan marka ay dhacday shaqo loogu baahnaa ay waqtigii loogu talagalay ku dhammayn waayaan. shaqooyinka yaryar ee aan qiimaha badan lahayn ayaa waqtiga intiisa badan inaga qaata oo inagu buuxiya. arrimahaas oo dhan waxaa xal u noqonaya inaan waqtigeena si fiican u maarayno. 4, si aan waqtiga u lumin uga faa'iidaysano. ma haysto waqti aan quraanka ku xifdiyo, aad baan u mashquulsanahay. ma haysto waqti aan ku akhriyo jaraa'idda iyo macluumaadka guud. waxaa jiro arrimo ka muhiimsan. ma haysto waqti igu filan oo aan ku qoro wixii aan doonayay oo dhan. waqtigu degdeg buu dhammaanayaa. haddaba xalka arrimahaas oo dhan waa maareynta waqtigeena. 5, si aan uga baxno daalka iyo niyad xumada kaas oo yareeya wanaajinta shaqada. dhammaanteen gurigeenna ayaan galabtii ku noqonnaa innaga oo aqliga iyo jidhkaba ka daalan. waan quustay waayo ma haysto waqti aan waxaas oo dhan ku maareeyo. wanaajinta shaqadu way sii yaraataa mar kasta oo aan daalku barto. arrimahaas oo dhan waxaa u noqonayaa maareynta waqtigeena. xasuuso had iyo jeer maareynta waqtiga waa arrin shakhsi oo ay waajib tahay inay duruuftaada la jaanqaado. beddelidda caadooyinka hore wuxuu qaadanayaa waqti dheer, wuxuuna u baahan yahay dadaal badan. ma ogtahay maareynta fiican ee waqtigaagu inay saacado dheeraad ah ku biiriso noloshaada? waa marka aad wanaajiso ka faa'iidaysta waqtigaaga lumaya. maalintii oo 15 daqiiqo aad waqtigaaga ku darto oo aad ka faa'iidaysato waxay ka dhigan tahay inaad sanadkii 13 maalmood oo dheeraad ah aad ka faa'iidaysatay. haddii aad kordhiso oo aad 30 daqiiqo ka dhigataa waxaad sanadkii ka faa'iidaysatay 26 maalmood oo dheeraad ah. taasi waxa ay ka dhigan tahay in sanad waliba aad bil dheeraada ku dartay. xasuuso waqtigaagu waa qayb ka mid ah
cimrigaaga ee ha ku lumin waxa kuu faa'iideynaya mooyee wax kale. intaan kulmi doono aysan ku soo gabagabeynayna furihii koowaad ee maanta. la soco furaha labaad ee noqo guuleystaha maanta ee ku xirnaa janaalkeena Munawar Video Production. mahadsanidin asxaabteena qaaliga ah.